Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Dhalinyaro kusoo dhawaada casharkeeni taxanaha ahaa ee inoo socday ee ku saabsanaa Windows 10 Pro. Waxaan maraynaa casharkii arrangementiga ahaa. Casharkii ka horeeyay baartadiisii labaad wuxuu ku saabsan yahay sida aad desktopka u arrange garan lahayd hab automatiga iyo sidii aad desktop hiding ugu samayn lahayd aad uga qarsan lahayd documentigaaga aad u qarsan lahayd. waxaa kaloo ku saabsan yahay hadii ilaahay kuweyno by tabingkii. waxaan galaynaa marka u guda galaynaa casharkeeni. hadda waxaad aragtaa shaashada meel walba file baa yaala, meel walba file baa ka muuqda, waa kuwa. marka ugu horeyn waxaan ka bilaabaynaa right click, then waxaan leenahay view. halkan waxaa kugu horeeya wax la yiraahdo large icon. hadda maximum buu saaran yahay. large icon markaa ku dhufato waxaa aragtaa marka iconadaadii inay noqdeen kuwo aad u balbalaaran oo waaweyn. waad ku noqonaysaa right click baad siinaysaa, view baad tegaysaa, then waxaad leedahay bal small icon dheh. waxaa aragtaa inay noqdeen kuwo aad u yaryar, small iconskii inay noqdeen. saasay tahay weli ma arrange garaysno, halkan mid baa yaala. haddaan soo jiido xagga dhigo waa sidoodii. hadda mid meeshaan rabaan dhigi karaa amar buu qaadanayaa. the next level marka haddana view waan ku noqonaynaa. badanaa dadku waxay isticmaalaan waxa la yiraahdo minimum icons oo ah dhexdhexaadka. right click baan ku ceshay, waxaan leeyahay marka iyada inaan dhaho hadda wuxuu saaran yahay inaad saa rabto adigu ka yeeli kartid oo adigu aad shaxaysan kartid waxa aad meesha aragtid dhigi kartid. haddaan dhiraahno marka intaan kan tigta ka qaado aan view ku noqdo aan iraahdo automatic ka dhig range, already wuxuu ka dhigayaa kuwo israacsan. haddaan dabacno marka inaan kan intaan qaadno geyno koonaha markaa aqbalayo. haddaan sii daayo meeshiisuu ku noqonaya. haddaan kan soo qaado ma ogolaanayo. ha ka yaabin because automatic arrange baa ku saaran. laakiin haddii aad automatic range-ga ka qaadid oo tigta ka qaadid saarta ka yeelaysaa, kana qaadaysaa halkaas dhigaysaa, kana qaadaysaa halkaas dhigaysaa. hadda meeshii aad markaa ugu talagashay baa dhigaysaa. laakiin muhiimaddu waxay tahay wax walba inay ku arrange garaysan yihiin oo ku qurux badan yihiin. right click C, view tag, waxaad tiraahdaa auto arrange icons. iconada tan muuqda badanaa icons waxaa la yiraahdaa waa iconska iyo documentsku labay kala yihiin. iconska waxaa la yiraahdaa waxyaalaha programmeska shortcutka ka samaysma hadiiba desktop laga hadlayo. icon waxa ah for example hadda kan double reader ka, chrome kan, fox reader kan, player kan, something kuwaas ah. now waxaan ku xijinaynaa markaa sidii aan u qarsan lahayn desktopkeena. waxaan leenahay show baa hadda ku saaran tahay tigta haddaa ka qaadid dhammaan wixii desktop ku yaala way kaa qarsoomayaan oo hiding desktop ayaa samaysay. wayna dhacdaa in badanaa dad ay ku dhacdo ay gacanta kaga dhacdo. waxaa jira xataa in Windowsku waa arki doonaa inuu iska kaa qalabarigo karo, dhinaca kale isu gedin karo oo waqti badan ay kaa qaadan doonto sidii aad ku soo celin lahayd. marka iyadana casharada soo socdaan ku qaadan doonaa. dib baan waxaan ugu noqonaynaa marka tigta inaan soo saarno desktop show. waad aragtaan waxaa soo noqday dhammaan iconskii desktopka saarnaa. casharkeena macaawa halkaasaan ku daynaynaa. dhammaan ardayda daawanaysa barnaamijkan aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan ka codsanayaa inay like-ta, commentiga iyo share-ta iyo subscribe-kaba kanaalkan siiyaan. dhammaan inta xiiseynaysa oo danaynaysa inay ka faa'iidaysato barnaamijkan Windowsku wuu ballaaran yahay, aad buu u tiro badan yahay. waxaan ku jirnaa laakiin muhiimadda Windowsku uu leeyahay casharada dhabta ah ee qofka Soomaaliga ah uu u baahan yahay. welina way ay socdaan, casharo badan baa ka haray.
aad baan idinku hambalyeynayaa dhalinyarada joogta daafaheeda Soomaalida ee soo subscribe gareysay kanaalkan isla markaana daawatay. aad baan ugu mahadnaqayaa. Thank you very much. guul iyo gobonimo waan idin rajaynayaa. la socod wanaagsan. casharku waa taxane. Thank you very much.